magaalada Zaylac waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu xadaarada iyo faca weyn bariga iyo geeska qaaradda Afrika. waa magaalo xeebeed taariikh fog leh, waxay leedahay ilbaxnimo iyo magac dheer oo dunida qarniyo badan laga yaqaanay. waa mid ka mid ah magaalooyinkii uu ugu soo horgaaray islaamku, waana magaalooyinka dhif iyo naadirka ah ee laga heli karo masaajid leh 2 qiblo adduunka oo dhan. magaalo xarun iyo caasimad u ahayd saldanadihii iyo suldaamadii ugu awoodda badnaa geeska Afrika. magaalo ay boqoradii Itoobiya kala dhaxli jireen riyadooda ah inay u noqoto dekad dalkooda ku xirta adduunka intiisa kale. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku lafaguri doonaa sooyaalka faca weyn ee ay la gaarka tahay Zaylac. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. magaalada Zaylac waxay ka tirsan tahay gobolka Awdal, waxayna ku taallaa gacanka cadmeed iyo marin biyoodka Baabulmandab. jihooyinka bari iyo waqooyi waxaa ka xiga gacanka cadmeed, galbeedna waxaa ka xiga dalka Jabuuti. Zaylac agagaarkeeda waxaa ku yaala ilaa 12 jasiiradood oo yaryar oo ay ka mid tahay jasiiradda Sacaadadiin ee loogu magac daray Suldaan Sacaadadiin oo ka mid ahaa raggii aasaasay saldanadii Cadal. inkasta oo waqti rasmi ah taariikhdu aysan ku diiwaan gelin xilliga la aasaasay ama ay bilaabatay in la dego Zaylac, haddana qoraalada taariikheed ee ay ka tegeen sahmiyayaashu ayaa sheegaya in magaaladu tahay magaalo qadiimi ah oo jirtay waqtiyo ku dhow bilowgii taariikhda miilaadiga. sida qaar badan oo magaalooyinka xeebaha ku yaala, Zaylac waxay ku bilaabatay xiriiro ganacsi oo dhex maray dadkii deganaa tuulooyinka iyo baadiyaha u dhow iyo ganacsatadii doonyaha ganacsiga keensan jiray dhulkan. Zaylac ayaa xiriir fog oo ganacsi la lahayd masaaridii hore, Griigii, Roomaankii, Beershiyaankii iyo boqortooyooyinkii Yaman sida Ximyar iyo Saba. Griigii hore ayaa u yaqaanay magaca Avaletis oo dadka sooyaalka wax ka qora qaarkood ay ku macneeyaan in loola jeedo marinkii ciriiriga ahaa, iyada oo la tilmaamayo halka ay dhacdo Zaylac ee marinka Baabulmandab. kitaabada taariikhda kuwooda ugu faca weyn sida Kitaabul Buldaan iyo Mucjamul Buldaan oo la qoray waqtiyo aad u fog ayaa Zaylac ku tilmaamay magaalo dhisan oo ganacsi iyo ilbaxnimo xoogan ay ka muuqato. waxay ahayd suuq weyn oo lagu iibiyo dahabka, qalinka, fardaha iyo udugga. waxay ahayd magaalo kaalin weyn kaga jirta isku socodka ganacsiga qaaradda Afrika iyo dunida inteeda kale. sahmiyihii weynaa Ibnu Batuta oo Zaylac booqday ayaa ku tilmaamay inay tahay magaalo weyn oo suuq weyn leh. waxa uu yidhi waa magaalo camiran oo leh suuq lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan, sidoo kalena leh kalluumaysato laashash badda uga soo jillaabta. in laashash iyo wax la mid ah lagu jillaabto xilligaasi waxay ahayd arrin naadir ah, taasi oo ku tusinaysa ilbaxnimada ay dheereed magaalooyinka kale. Ibnu Jawfal oo ka mid ahaa qorayaashii hore ee taariikhaha magaalooyinka wax ka qori jiray ayaa Zaylac ku sheegay in ay tahay magaalo weyn oo leh dekad alaabaha u kala dhoofisa dhulka Xabashida oo waqtiga loo yaqaanay geeska Afrika, Yaman iyo dhulka Xijaas. halka uu asal ahaan ka yimid magaca Zaylac ayaa lagu tilmaamaa dhowr qaab oo kala duwan. taariikhyahanada qaar ayaa qora in ay jireen qabiil carbeed oo deganaa dalka Yaman oo la oran jiray Banu Zaylac. magaca magaaladuna uu ka yimid ganacsato reerkaasi ah oo magaalada ganacsi u imaan jiray, halka kuwa kalena ay qoreen in carabtii hore ay dadka Soomaaliyeed u aqoon jireen magacyo kala duwan sida Berberka Bari iyo Zayaalica. carabtii horena ay magaalada u yaqaaneen dhulka Zayaalicada. muddo kadibna magacu uu noqday Zaylac. ma jiraan xogo intaasi ka badan oo laga qoray raadka taariikheed ee halka uu ka yimid magaca magaaladu. Zaylac waxay ka mid tahay goobihii ugu horeeyay ee diinta Islaamku ay ka soo gashay qaaradda Afrika. waxaa la sheegaa in diintu soo gaartay Zaylac waqtigii hijratul Xabasha ee ay saxaabadii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ku yimaadeen dhulka Xabashida. waxaa magaalada ku yaala masaajid loo yaqaano Masjidul Qiblatayn oo ah masaajid la dhisay intii ay qiblada muslimiintu ahayd Masjidul Aqsa, intii uusan Alle subxaanahu wa tacaala u wareejin dhanka xaramka. intii ay jirtay magaaladan waxaa soo maray xukunno kala duwan oo ka kala socday xadaaradihii waaweynaa ee dunida soo xukumay qarnigii 3 ee taariikhda miilaadiga.
waxaa magaalada Shawa oo u dhow magaalada qadiimiga ah ee Harar ka jirtay boqortooyo ay maamuli jireen salaadiin muslimiin ah oo la oran jiray saldanada Ifat ama saldanada Nuurka. boqortooyadan ayaa duulaano xoogan kala kulmi jirtay boqoradii Itoobiya ee xukunka ku kala dambeeyay dhamaadka qarnigii afraad. boqorkii Itoobiya ayaa ka awood batay suldaankii Ifat oo la oran jiray Sacaadudiin. madaxdii saldanada Ifat oo uu hogaaminayo suldaan Sacaadudiin ayaa u soo cararay dhanka magaalada Zaylac oo ku dhowaad 400 kiiloomitir u jirta magaalada Shawa ee markii hore uu ka talin jiray. Sacaadudiin ayaa Zaylac ka aasaasay boqortooyo uu ugu magac daray Cadal. boqortooyadii Xabashida oo diidanayd in saldanad muslim ah oo awood leh ay ka soo agdhowaato ayaa iyada oo ay la socdaan ciidamo Burtuqiis ah waxay duulaan ku soo qaadeen Zaylac oo ahayd saldhigga saldanada Cadal. dagaalkaasi ayay huwantii Xabashida iyo Burtuqiisku ku burburiyeen magaalada Zaylac waxaana lagu dilay dagaalka suldaan Sacaadudiin. suldaanka ayaa lagu aasay jasiiradda Sacaadudiin oo ilaa maanta magaciisa xambaarsan. qoyskii suldaan Sacaadudiin ayaa u baxsaday dhanka Yaman. muddo kadibna waxaa Zaylac duulaan ku soo qaaday ciidan uu hogaaminayo wiilkii suldaan Sacaadudiin oo lagu magacaabi jiray Sabrudiin. dagaalkan ayaa lagu jabiyey ciidankii huwanta ahayd waxaana lagu dilay boqorkii Xabashida. magaaladiina waxay mar kale dib ugu soo noqotay saldanadii hore ee Cadal. intii ay saldanadan xukumaysay Zaylac waxaa aad sare ugu kacay barashada diinta iyo cilmiga kala duwan. Zaylac ayaa noqotay goob cilmiga looga yimaado dhulal kala duwan. ganacsiga magaalada ayaa sidoo kale xilligan aad sare ugu kacay. saldanada Cadal ayaa magaalada ka dhistay goobo dadka lagu daweeyo, maxkamado dadka lagu kala xukumo, iyo sidoo kale masaajid cilmiga lagu barto. magaalada ayaa sidoo kale waqtigan yeelatay ciidan xoogan oo ka ilaaliya cadowga kaga imaan kara dhanka badda iyo berigaba. madaxdii soo maray saldanadii Cadal waxaa ka mid ahaa imaamkii weynaa ee Axmed Gurey oo halgan dheer la galay boqortooyadii Xabashida. dagaallo badan oo uu la galayna waxa uu ku dilay dhowr ka mid ah boqoradii Xabashida. Zaylac ayaa xilliyo badan la kulantay duulaano xoog leh oo uu Burtuqiisku dhanka badda kaga soo qaadi jiray. Burtuqiiska ayaa sanadkii 1516 dab qabadsiiyey magaalada waxaana halkaasi ku burburtay inta badan magaalada. Axmed Gurey ayaa dib u dhisay si loo yareeyo dadka ka guuraya oo aysan u noqon meel cidlo ah. kadib geeridii imaamka waxaa hoggaanka reer Cadal qabtay Amiir Nuur oo halkaasi ka sii waday halgankii muslimiinta ee xiriirsanaa Zaylac ilaa Harar. markii uu geeriyooday Amiir Nuur, reer Cadal waxaa u bilowday isqabqabsi xukunka ah oo keenay in awooddii saldanadu ay daciifto, taasi oo sababtay inay u babacdhigi waayaan duulaanadii joogtada ahaa ee lagu soo qaadayay caasimadooda. madaxdii saldanada ayaa go'aansaday inay u guuraan Harar oo ka difaac rooneyd Zaylac si ay iskaashi uga helaan xukunnadii halkaas ka jiray. isdhexgalka saldanadii Cadal iyo kuwii ay ugu tagtay Harar ayaa sababtay in ay burburto saldanadii Cadal oo Zaylac ka talinaysay wax ku dhow 150 sano. markii ay meesha ka baxday saldanadii Cadal waxaa Zaylac xukunkeeda la wareegay amiirkii magaalada Muka oo ah magaalo xeebeed ku taala dalka Yaman. reer Muka waxay dhiseen dekad macmal ah oo laga dhoofin jiray fooxa, ugaarta iyo hargaha. ganacsigan cusub ayaa loo keenay inay magaaladu mar kale camiranto bilowga qarnigii 19aad. xeebaha badda cas saaran ee Yaman, Zaylac iyo Jabuuti waxaa la wareegay Maxamed Cali Baasha oo ahaa wakiilkii dowladdii Cusmaaniyiinta u xukumayay Masar. xukunka Baasha ayaa dhisay maamul odayo ay hogaaminayaan oo hoos tegaya amiirka Masar ilaa intii uu Ingiriisku dhulka Soomaaliyeed imaanayayna halkaasi ayaa Zaylac looga talin jiray. isticmaarku markii uu yimid dhulka Soomaaliyeed, xukunka Zaylac waxaa isku qabsaday Faransiiska iyo Ingiriiska oo mid walba uu doonayay in ay isaga hoos timaado. ugu dambeyn waxay ku heshiiyeen in Ingiriisku qaato maamulidda magaalooyinka xeebaha ah sida Zaylac iyo Berbera, Faransiiskuna la wareego magaalada xeebta ah ee Jabuuti. Ingiriisku waxa uu ahmiyad siiyey Berbera oo u dhow xagga badda magaalada Cadan oo waqtigaasi u ahayd saldhig weyn oo uu Ingiriisku ka xukumo dalalka bariga Afrika iyo dhulalka Carabta oo markaasi gacantiisa soo galay. arrintan ayaa keentay in dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga sida dhoofinta xoolaha iyo fooxa ay u wareegaan magaalooyinka Jabuuti iyo Berbera. Zaylacna waxay lumisay inay sii ahaato magaalo ganacsi muhiim ah. gumaysiga ayaa sidoo kale hoos u dhigay ahmiyadda Zaylac
si uu u tirtiro taariikhda qadiimiga ah ee magaalada. sidoo kale Zaylac oo markii hore ahayd halka laga dhoofiyo ganacsiga Harar iyo Shawa ayaa waxaa hoos u dhacay shixnadihii ka soo degi jiray kadib markii xiriiradii ganacsiga Harar iyo Shawa u wareegeen magaalada Tajuura oo markaasi uu Faransiisku gacanta ku hayay. dhacdadan ayaa dhaawac weyn gaarsiisay dhaqaalaha magaalada waxayna sababtay in ganacsato badan ay ka guuraan magaalada. taariikhyahanada ayaana ku tilmaamay inay ahayd marka ay bilaabatay burburka magaalada Zaylac. boqoradii Itoobiya ayaa xilliyo badan gumaysiga Ingiriiska ka codsaday in Zaylac uu ku daro dhulka hawd iyo galbeed ee uu Ingiriisku u saxiixay. boqorkii Itoobiya Hayle Selassie ayaa shirka la yimid qoraallo uu ku doodayo inay Zaylac tahay dhul Itoobiya leedahay, sidoo kalena uu doonayo in Zaylac uu ka dhiso dekad caalami ah. damacaasna waxa uu ahaa mid ay dhaxal ahaan boqoradii Xabashidu u kala qaadan jireen. damaca boqorada Itoobiya ayaa sii kala darnaa oo qaarkood waxay diidanayeen gebi ahaanba jiritaanka dhulka Soomaalida ee geeska Afrika, waxayna markasta ku doodi jireen dhulka Soomaalidu in uu yahay mid ay iyagu leeyihiin. markii la dhisay Jamhuuriyadda Soomaaliya sanadkii 1960kii, Zaylac waxay ka mid noqotay degmooyinka gobolka Waqooyi Galbeed oo la isku oran jiray gobolada Awdal iyo Waqooyi Galbeed. heshiiskii dhex maray Soofiyeedka iyo Soomaaliya sanadkii 1962 ee lagu dhisay dekedaha dalka ayaa waxaa mudnaanta la siiyey dekadda Berbera oo waqtiga loo arkayay inay muhiim u tahay dhoofka xoolaha. Zaylacna kaga dhowdahay deegaanada miyiga ah ee xoolaha laga keenayo maadaama Zaylac ay ku taalo cirifka kore. sanadkii 1984 ayaa la kala jaray labada gobol. Awdal oo Zaylac, Boorame, Baki iyo Lughaye ka kooban ayaa laga dhigay gobol gaar ah. Zaylac waxay ku taalaa deegaan aad u qurux badan. raadadka taariikhdii hore ee magaalada sida masaajidda qadiimiga ah, guryihii suldaamada iyo goobo kale oo taariikhi ah ayaa weli lagu arki karaa gudaha iyo daafaha magaalada. inkasta oo burbur xoogan uu ka muuqdo goobaha qadiimiga ah, qaarkoodna kaliya la arki karo haraadigoodii. waxaa xeebaha Zaylac meel wax yar ka durugsan ku yaala jasiirado ku habboon dalxiiska oo ay ugu horeeyaan jasiiradaha Sacaadadiin iyo Ceebaad. jasiiradaha Sacaadadiin ayaa leh dhul cagaaran oo xeebta ku wareegsan iyo biyaha badda oo qaab qurux badan u dhex maraya dhirta jasiiradda. xaafadaha Zaylac waxaa ka mid ah Waaberi, Sacaadadiin, Xalane, Qoordoodi, Awdal iyo Axmed Gurey. sidoo kale waxaa Zaylac hoos yimaada tuulooyin ku hareeraysan magaalada. inkasta oo sooyaal aad u mug weyn ay leedahay, haddana Zaylac waxay u muuqataa taariikh sii dhammaanaysa iyo ilbaxnimo aan helin ka warqabkii ay mudnayd. dhacdooyin badan oo isbiirsaday ayaa keenay in Zaylac ay noqoto magaalo la iska iloobay oo dayacan. dhismayaashii taariikhiga ahaa ee magaalada ayaa intooda badan burburay. kuwa yar ee weli harsanna waxaa ka muuqda burbur aad u xoogan. magaalaynta casriga ah oo aan si fiican u gaarin jidadka isku xidha Zaylac iyo deegaanada fogfog oo aan helin dayactir ayaa keentay in Zaylac laga dareemi karo dib u dhac aad u xoogan.